بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد ولله الصوماليات ملك السجوكتان أرن أن كأمسي وايي أيام ربعنا إذن لو ذا جمان تهدي إلهي لهذا دتك الصوماليات عدو فربنا أي إليهين عدو جينو ما أنت صوم باللعبان دتك الصوماليات بدها يا صن لو شوي ويكون من وايين وكوبا بوايين dhalinyarada dii ayaa la qaxiyay oo badaha lagu yaaciyay way baabi'i waayeen oo wali dhalinyaradii waa shaqaynaysaa daawo dhacday ayaa loo keenay wali dadkii waa dhimala yihiin oo waa baabi'ila yihiin raashin dhacay ayaa wadankeena la keenaa hoon la controlin wali dadkeeni waa nool yihiin oo iimaankoodii iyo caqiidadoodii iyo dadnimadoodii waa sii xoogeysatay hadda aan joogno waxyaabaha magaaladeena muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay ee ku soo cusboonaaday waxay tahay geedkan la yiraahdo taabuuga oo daroogada ugu khatarta badan ah dhaqaatiir fara badanna ay ka hadli doonaan oo aan idin soo gudbi doono iyo culamaa u diinka gobolka Banaadir geedkan taabuuga la yiraahdo uu kala duwan yahay uu kala magacyo duwan yahay uu kala khatar badan yahay taabuuga magacan Soomaalida u bixisay laakiin geedkan waa geed daraagis ah dadkeena inta badan daroogooyinka la yaqaano oo caanka aan ku nahay oo dhalinyaradeennu ay isticmaalaan inta aan wax baran waxay tahay jaadka iyo sigaarka iyo tubaakada ayaa naqaanay walow tubaakadu ay dadka odayaasha ah ay isticmaalaan inta badan geedkan taabuuga la yiraahdo kan aan haayo waxa laga keenaa Kenya diyaaradaha qaadka ayuu la socdaa oo diyaaradaha qaadka lagu keenaa inta badanna dadkii aan ka soo iibiyay beerta jaadka meesha la yiraahdo waxay ii sheegeen in dhalinyarada jaadka iska dhaaftay ay isticmaalaan oo bedelkii jaadka ayuu isticmaalaan iyo kuwa cuna labadaba ay isku darsadaan midkan kale waa magaciisa asna taabuu ayaa la yiraahdaa asagoo hod ah ayaa jira magaca hod ay ku qoran tahay inta badan kan waxa isticmaala ardayda wax ka barata gobolka Banaadir waa meesha aan rabo inaan xoog saaro oo maanta iga hadal siinayso waalidiinta Soomaaliyeed ubadka dhalay waxaan rabnaa inaan arintan la wadaagno gabdhaha wax barta gobolka Banaadir ayaa u badan midkan waxaan ka soo gaday isgoyska Baarbax gaar gacmo ku yaal ayaan ka soo gaday waxa ku jira 12 xabo ayaa ku jirta nus dollar ayaa liiga soo siiyay xabadkan asagoo tafaariiq ah ayaa jira saddexdii xabo labadii xabo 3,000 shilin Soomaaliya ayaa la gaday lacag aad u raqiis ah waxaan la sheekaystay mid kamid ah maamulayaasha gobolka Banaadir wuxuu ii sheegay oo ila wadaagay in musqulaha ay isticmaalaan ardaydu gaar ahaan gabdhaha ay aad ugu badan tahay ay aad ugu badan yihiin laga soo helay alaabtan laga soo helay waana wax ku cusub ardada Soomaaliyeed kuwa jaamacadahana dhalinyaro nadiifisa meelaha qaar jaamacadaha qaar oo la sheekaysay waxay sheegeen goobaha ay nadiifiyaan inay ka soo heleen laakiin xogta aan hayno ardada jaamacadaha dhigata iyo kuwa dugsiyada sare dhigta waxa ku badan isticmaalkooda kuwa dugsiyada sare sidoo kale ardayda wiilasha iyo gabdhaha dugsiyada sare isticmaalka waxa ku badan kuwa gabdhaha ku badan isticmaalkiisa waa geed aad u khatar badan dadka yaqaan luqadda Ingiriiska haday arkeen horay u arkeen way arkeen hadaysa arkinna waxa ku qoran waxa aad ka malaysanayso khatara ayaa ka badan intaad malaysanayso inta khatartiisa oo dhibaatada kale uu leeyahay ka badan carabiga dadka wax ku aqriyo oo carabiga fahmaya waxa ku qoran hiya akhdar mimma tadunnu inta khatar ah oo arintaas laga helayo bahalkan laga helayo ayaa ka badan khatarta aad ka malaysanayso dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta khayr Allah siiyo way dadaaleen laakiin waxaan leeyahay waalidiinay xoogiinu waa xoog doofaar lagu eriyay waa tacab khasaaray ninka beerta u soo go'ayso beerta ka shaqaysanaysa muddo beertiisa soo bixaysay ma jecla in beertiisa dab lagu qabto ay baabado waliba dabku talagala wuxuu haday qadar yihiin waa gooni laakiin dabku talagala inay inta lagu qabto ay baabado ma ogola waalidiinta ilmihiina waa ku soo dadaasheen inaad biilkiina raadisaan barbaarintoodiina ilmaha aad ku dadaasheen arrin ka weyn meeshaas ka baxday oo ah inaad waalidiintiina ilmihiina la socotaan kontarooshaan oo ogaataan laakiin waalid biilkii raadinayo gurigii ka maqan asaga iyo ubadkiisa isku waqti ay ka baxayaan gurigii sida uu ku kontaroolo way adkaanaysaa marka mas'uuliyad ka weyn biil raadiska iyo badarka aad raadinaysaan iyo waxa aad baraysaan iyo barbaarintooda mas'uuliyad ka weyn meesha ka baxday oo ah inaad hubisaan oo kontarooshaan ilmihiina oo aad la saaxiibtaan haddii meeshii dhibaatada wadanka dadkii ka saari lahaa la beegsanayo oo dhalinyarada wax baranaysa sidaan loo daroogaynayo oo saan loo sumaynayo maxaad u malaynaysaa
in waddankan uu ku sugnaan doono xaaladiisa waddankan xagay ay gaari doontaa waxaan ka codsanaynaa waalidiinta iyo bahda waxbarashada in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kaashanaya ay shirar degdeg isugu yimaadaan ay arrintan ay falanqeeyaan arrintan waa musiibo waa meeshii ugu dambeysay ee waddankan laga nabaad guuri lahaa waddankan laga baabi'i lahaa dadkeenu way dulqaad badan yihiin way sabar badan yihiin laakiin arrinkan waxaan rabnaa waalidiinta inay arrintan gaar ay ku hayaan labada meel ee aan ka noolnahayba waddankeenu waa waalidkeenna oo nagu soo tiiriya tacabeelay iyo macallimiinteenna iyo barayaasheenna qiimaha badan oo waddankan badbaadadiisa inta yartaa oo uu ku dhaqaaqayo ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay maantana waxa weerarka lagu yahay waa ayagii waa meesha ummaddeenu ay ka nooshahay waxaan leeyahay maamulayaasha iskoolaadka iyo kuwa jaamacadaha iyo waalidiintaba shir degdeg ah isugu yimaadeen arrintan xal ha loo helo qof kasta oo wax ka qaban karna arrintan ha ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan ku xirnaano oo ilaahay aan waddankeenna wanaag iyo khayr iyo barako u raadino waad maqlaysaan dhibaatooyinka waddanka oo khaarijka iyo daaqilka labadaba naga haysta tani waa daaqilkii waa meeshii ugu dambeysay khaarijkana mushkilaadka iyo dhibaatooyinka waddankeena lagu haya waad ka warhaysaan daroogo oo jaadka iyo sigaarka iyo tubaakaan maaro u weysanayn markii dadkii aan waxbaranaynin laga soo jeestay waxaa loo soo jeestay kuwii waxbaranayey ubaxii dalka u soo baxayey kuwa aan ku tashanaynay kuwa la rabo waddanka inay mustaqbal u yeelaan horumar gaarsiiyaan ugu dambayn dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mas-uuliyadda dalkan u dhiibay xoog iyo xoolaba ku baxshay sida ay xil u qaba lahaayeen ilaahay uga cabsado ummadda mushkiladan waad og tihiin adinkaa ku canshuura dekadaha waxaan meel kale kama soo galaan diyaaradahay ku yimaadaan dekadahay ka soo degaan ilaahay uga xishooda ilaahay ummadda uga cabsada waa laidin xisaabin doonaa ummadduna waa idin xisaabtami doontaa ilaahayna waa idin xisaabi doonaa xoole iyo waxaad ku bixiseen xoog sidaad xil u qaba lahaydeen ilaahay ka cabsada haddii aad waxtar leedihiin oo ummadda wax u qabanaysiin ummadda dhibaatadan ku sugan ka badbaadiya waxa aad doonateen waa ciqaab ayadoon xoog iyo xoolo lagu bixin ayaa xilalka noocaana laga carari jiray ee mas-uuliyadda ummadda in loo qabto waan la soconnaa taariikhaha dadkii wanaagsanaa ee soo galay ilaahay ka cabsada ummaddiina badbaadiya haddaad dad wax taraysa tihiin ood wax qabanaysiin aadaa u mahadsan tihiin qof kastoo soomaaliyeed ee kilibkan daawanaya waxaan ka codsanayaa inuu sheergareeyo uu la wadaago asxaabta kale ee dadkiisa ama ehel ama qaraabo uu la wadaago arrintaana la wada istaago guul iyo gobonnimo insha allah